بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي مهد نمعوين بدن بوهي نسين إنه مهد غيرنا عافماد له نباد له هؤلاء الرسل والقرية أينو قبصنا له تدكينو إلهي التشويشكي يشكي كسارة السود يعني معلومة بعد قدم بس وما تمدى السن ومن يتشدر كود السنة إلهي نقص منه الحمد لله مات يريد أن أريد أن يدينون أضي وحوي دورشة مقلي لبدي دورشة سوريين ولا هيدين يحيد عي وحن كبر إنه واحد الله أقبل ست طورة يدور واحد هذان مركز حسابته وسان تحاسب كالعدواني وحنا يدعون كالإخواني مركز واحد بدأ مركز دورشة الدنيا سريين أي ولا حساب الله ما حسابته وكراه أنا كافي أنا كان واسر أو حاجة قوية عادي وحين صوم مريض أنت طوش مسار ما أنت عرفت مالك وحرسك أنا مركز عرفت عناي هرجيسا عناي أنت قولنا عناي وحن قوامي إن أوحره أو ما أنت ترتكع عنو قرين عبد الرحمن صوابها يا أبو الشيخ وحنا آدي أبوك مغضبية إن أنا إساق أولورين أو حدر التلاواسي وانقاتي قروحة إسراع يدنك الله مغضبية مركو هوري مغاية هرقيسو أسخلاف سنة دورشد ديقاوة قلبيسو أنا وجودا مبعي كرتا يودا أسخلاف سنة يسيرين سنة يكاشو دورشو لبدين أودي الله marka soo wala ay laba aan ribaax kara oo joog iyo dib loo qoran karayana si walba inuu ku sii daayo ku durdursaan magaalada ana tiidi aad baan kugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan maanta wad guuleysatay oday qaatay xisbi aad noqotay maanta adaa xilka magaalada qabanay xisbi iyo inamada kale ma diidana ummaduna saasar hal ku tay mid kale waan إيه ورسادة وحنقول كان حين أتذكر عدسي تهلت شابيه حب بلقاء كرتينا بلقاء هل رجعت بسون أنت يا حكومة أنا ولا غش غيره عبد الرحمن قع أنت الكوات من القرين وحنا قلنا إذا كفرين وحنا لا سياسة على سنبا ما فرق عرنت لك ما كعاية سن يدا أول شقين سان لم يدري على تبتشو أنا سوى رسول شقسان إيه أنت كلام حقي كلام تاني قارسية أنا مهتدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مدحوينها جمهورية Somaliland مدن موسى بيحي عبدي مايركii cusub noqonaya Khamiista insha Allah ta'ala Cabdikariim Axmed Mooge iyo baas xaafadda naga joogtada assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh shaqo aan kulankan isugu nimaadno runtii maantana waan sheegay waan ka hadlay Cabdikariim colaad naga dhaxaysay ma jirin 30 sano oo saaxiibna ilaa 1999 waxa ahayd in kursigaana kaaga fiican iyo aniga kaaga fiican أنا waxaan lahaa waxaan dhameystirayaa qabiyooyinkii yaalay Cabdikariim wuxuu lahaa waxaan sameeyay magaalo cagaaran waa tartanka dadku waxay u dooranayeen 290 ku baa ka odayakiisa waxay soo dooranayeen 17 xildhibaan 17 xildhibaan ayaga iska dooranayay maayarka oo hada cilmiga madaxweynaha inta soo dhowr kulan qaadanay markii dambeeyna ka qaatay go'aankii ugu wuri maanta adigu joog iyo duruufo badan leeyahay runtii siyaasiguna ma aha kaarooda waa ka wax kastoo dhacayda xalkeeda ma dhameeya anigu madaxweynaha iyo dalkayga iyo magaaladayda qadaynaya inaan Cabdikariim la shaqeeyo ayaan qaatay aan golaha deegaankana la shaqeeyo aan oday la shaqeeyo noqdo kamid ah xubnihi la soo doortay labadii waa baad kuma anaqaya madaxweynaha baad ma santay assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysaa madaxweynaha waan mahadnaqayaa tan iyo maalintii aan baaqo soo diray madaxweynaha arintan soo dhex galo sidii wanaagsaneyd ee madaxweynuhu uu xil isaga saaray inuu arintan galo Hargeysa oo mideeyo ay midnimada Hargeysa doorashan u galay
waxay ka bilaamaysay in xildhibaanada 17 la doortay madaxweynahoodii odaygoodii inuu dhex galo codka shacabka inta badani marka sharciga loo noqdo de haddii la idhaa xildhibaankii ugu codka badnaabaa noqonaya maayar sharciga ma waafaqsana sharciga waxay ku waafaqsan tahay in 17 xildhibaan ay shirka galaan ay codeeyaan ay dabatana doortaan qofka ay doonayaan laakiin madaxweynuhu isagoo mahadsan shacabkiisa jecel inta badan ixtiraamay tixgeliyay baaqa anagu aan dirnay waxa baaq aan ku doonaynay in dadka faraha badan ee maanta markii ugu horeysay si ku xora qabyaalad u codeeyay ka codeeyay xaafado iyo degmooyin kala duwan qofkay u codeeyeen in markaa la doorto madaxweynuhu arrinta xil iska saaro runtiina madaxweynuhu dhowrka cashay tagay si mas'uuliyad leh madaxweynenimo leh odaygii qaranka ayaa arrintaa u galay una dhammaystiray walaalkii cabdiraxmaan maayarkii hore weliba maayar isagaa weli maayara waxaan uga mahadnaqayaa in isagoo xaq u leh inuu mar labaad tartamo isagoo xaq u leh marka horena sheegeen hol lahaa inuu isaguna madaxweynihiisa codsigiisa ka aqbalo oo runtii aniguba aan aqbali lahaa haddii madaxweynuhu uu iga codsado waxaan madaxweynaha uga mahadnaqayaa inuu danta Hargeysa ku horeysiiyey danaha xisbiyada waayo markaad eegto arrintan siduu u maamulay wuxuu maamulay si la jecel leh Hargeysa jecel leh madaxweyne dadkiisa iyo magaaladiisa jecel waayo hadduu indhaha xisbi ku eegi lahaa xaajada halkan ay soo gaadhay may soo gaadhin madaxweynaha kaaga mahadnaqay aad iyo aad baan kugu mahadnaqay Abdiraxmaan maayar aad iyo aad bay mahadsan tahay waxaad qaatay go'aan geesinimo leh waxaad ixtiraamtay madaxweynahaagii waxaan noo farxala waarinimadaadii inaad golaha kula jirto oo nala joogto waxaad insha Allah noo noqon doontaa odaygii golaha deegaanka imika dawladda kuma noqon doontaa odaygii Hargeysa waxaad noqon doontaa maayarkeygii hore saddexdaa taytalna saddexda ixtiraamkooda waad naga helaysaa insha Allah taala shaqo wanaagsan baynu wada qaban waxaanu ka faa'iideysan aragnimadaada aad iyo aadna waan kugu mahadnaqayaa